maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay maanta xukumo kala duwan ku kala fulisay dad eedeysanayaal ah kuwaas oo dambiyo kala duwan ka galay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa waxa uu ku eedeeyay dambiilayaasha in ay geysteen dhac iyo boob kuwaas oo ay u geysteen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo. Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay dib ugu celisay xorriyadooda dad lagu soo eedeeyay in ay ka dambeeyeen falal kala duwan oo ka dhacay magaalada Kismaayo. waa kan gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed oo ka hor akhrinaya maxkamadda dambiyada lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha. xeer aliyaha maxkamadda ciidamada uu si wada jir ah ugu soo eedeeyay inay geysteen fal burcadnimo iyo dhac taariikhda markii 14 bisha 2015 qoriga lambarkiisu uu yahay AK47 733 iyo ku hubaysan xaafadda Farjanna halkaas oo ay ku qaateen moobeel iyo lacag dhan 450 shilin Soomaali. dhibanayaasha ay lacagta ka dhaceen iyo moobeelka waxaa ka mid ah kow Cabdinaasir Maxamed iyo Maxamed Rooni Niyo. kadib markay labada eedeysane ay qirteen falka burcadnimo iyo dhaca waxayna jebiyeen qodobka 324 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan. 3 Dable Maxamuud Aadan Dhaqane ina Faadumo Sheekh Maxamuud 29 jir ku dhashay Hargeysa ka tirsanaa ciidanka taliska Jubbaland kaasoo xeer aliyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyay iswartaag iyo xoog ku isticmaal waajibaadka ciidan. kadib markuu maxkamadda horteeda uu ka qirtay faldambiyeedkaas wuxuuna eedeysanaha jebiyey qodobka 127 xeerka ciidamada qalabka sida waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi ciidan 1 sano. eedeysanaha afraad eedeysane Mahad Maxamed Aweys ina Diib Bogol Faarax 7 jir ku dhashay Kulbiyow ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda iyo Maxamed Sukri Cabdi Qaadir Cali 20 jir ina Ramlo Cabdullaahi Xasan ku dhashay Kismaayo ka tirsanaa taliska ciidamada Jubbaland iyo Ismaaciil Abukar Maxamed ina Faadumo Aadan Xuseen ku dhashay Afmadow. saddexda eedeysane wuxuu xeer aliyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyay inay si wada jir ah ay u geysteen fal dhaqan xumo ah oo ay qaadeen lacago sharci darro ah lacagtaas oo dhan 75 kun oo laga qaaday baabuur. kadib markay maxkamadda horteeda ay ka qirteen falka dhaqan xumada waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 3 bilood oo xabsi ciidan. سيدين eedeysanaha Mukhtaar Maxamed Xasan ina Sahro Maxamed Jaamac 30 jir ku dhashay Jamaame kaasoo xeer aliyaha maxkamadda ciidamada uu ku soo eedeeyay inuu xiriir la lahaa Al-Shabaab. kadib markay maxkamadda la hor keeni waayay cadeymo ku filan eedeysanahaas waxayna maxkamaddu waxaana sidoo kale fariin u diray shacabka Jubbaland taliyaha hoggaanka dambi baarista nabad sugidda ee Jubbaland gaashaanle sare Axmed Muuse Xirsi. Jubbaland waxaan qaadnaa kiisaska ciidamada iyo dadka ciidanka la nool waa military iyo military saato waa isku dambi weeye. qofka ciidanka la nool hadduu nin ciidana fal dambiyeed la galo isagu la mid yahay. sidoo kale maxkamadda ciidamadu waxay qaadi doontaa kiisaska qaran dumisnimada wax ambiilana male. ma ahan markii ugu horeysay ee maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Jubbaland ay xukumo kala duwan ku kala fuliso eedeysanayaal waana markii afraad ay xukun fuliyaan maxkamadda ciidanka. Maxamuud Axmed Warsame TV-ga Somali Channel Kismaayo.